بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لبدا قدون أقل كسرية أقل كهوسة لبدا قوله waxaan idinku salaamayaa mar labaad salaamu alaykum iyo gudiyadii ka soo shaqeeyay arintan dastuurka aad u mahadsantihiin inta badan waa laga hadlay oo moogtahay hadii uu hal xildhibaan hadlo oo qof kale ku soo noqdana wax ma soo kordhinayso waa mahadsantihiin waxa ka hadlayaa qodobka cutubka labaad qodobkiisa afraad hantida gaarka loo leeyahay فرقديسة لبعض دولته waxay si khasab ah hantida ula wareegi kartaa marka ay jirto dan guud qof kasto hantidiisa danta guud awgeed loo wareegay wuxuu dawladda xaq uga leeyahay magdhow caadil ah dhinacyada heshiiska ama ay maxkamadda go'aamiso hantidu maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa guri waxay noqon kartaa dhul waxay noqon kartaa bangi lacag ku jirta maxay noqonaysaa waxa qurux badan waxaan waa dastuur inay ku cadaato wax kasta oo soo qoraysaan oo bartoola qofka xuquuqdiisa iyo xaqiisa uu ku helayo inaad soo qortaan laakiin hantida guud markaad soo qoraysaan hantidu waa macno badan tahay Soomaali waan nahay hadalkiinu si kasta uu macno banaan doona qodobka 25aad xuquuqda bulshada qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo biyo nadiif ah oo cabo yuu ka helayaa ma dawladdu ka helayaa ma wuxuu ka helayaa hay'adaha yaa loo raacaya ilaa kumeedan soo qeexin cid uu ka helay inteena badan deegaamada abaaruhu ka dhacaan ama deegaamada shabeellada hoose iyo waxa jirta dadku inta badan waxay u dhintaan inay cabiyaan biyo la'aan iska daa biyo aan nadiif ahayn inay u dhintaan waxa ay biyo una carabka saaraan inta badan biyo iska gaayala dawladdu ma gaadho hay'adaha ma gaadhaan marka hadii aad tiraahdo waan iska hadlaya waxbaan iska xariiqaya waa ayaan dar wax soo jeedinaya in la raaciyo cid biyaha laga doonayo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay daryeel bulsho oo dhameystir daryeelka bulshada keenaya dawladda keenaysa hay'ad baa keenaya yaa laga doonayo daryeelka bulsho waa in lagu cadeeyaa dawladaha ay ku hoos imaanayaan hay'adaha madax bannaan ay imaanayaan oo ku soo qoraan because dadkeena inta ugu badan maanta dhibaataysan waa dadka danyarta ah ee haysanin caafimaad maanta caafimaadku waxa uu insaanka ugu horeeyo uu helo noloshiisa waa caafimaad waxa soo labeeyana waa waxbarasho hadayna ka sii horeenba nabad marka inagu nabadeena wali ay wax naga maqan yihiin oo nololkeena qaybo ka mid haystaan niman isku sheegaya in ay yihiin diin inay ku darayaan in caafimaadkoodii iyo biyaha ay cabayaan iyo noloshii adkeedba aan aad moodo in si looga carray qodobka 26aad daryeelka qoyska qof kasta oo qaangaar wuxuu xaq u leeyahay in uu guursado guurkaasna uu ku yeesho qoys uu ku leeyahay diiniyan oo fiicanta guurka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa sunnah inaynu guursano waa sax maxay ay dawladdu ay ka qabtaa inta badan waxaad arkaysaan guur aan dadka ehelada aan raalli ka ahayn oo la isku guursanayo awlaada ka dhalanayaan wax aska kaftamada qubsaro la ilaa waxyaabaha ay inagu qaangaaray oo jaahilnimo tahay guurka sidiisa banaanba wuxuu ku qurxiyay madal in la isku bixiyo qodobkiisa 6aad xeerka uu soo saarayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya nidaamka arrimaha qoyska waxa jiray waqtigii kacaankii siyaad bare culimo waxa loo diray in ay xeer ka soo saaraan may culimo mahayna dawladda loo diray waxa lagu dhahay xeer laga soo saaray xeerkii la soo saaray wuxuu noqday in diiniyan gabadha iyo wiilku ay sinaadaan dad islaam ah baan inagu shadu la ilaaha illa muhammad rasuulullah ما إلهينا مسمين مركا دينيا مسمي كرنا دودي سيال برا ولادي باقي لسي ويدقالمين كل كرت ما ضحك هذا الشر مسيرة دي وقت جاي نقول على ألا هو اللي نقولته وحن مركا سوي شيء لها حرك ما ده برلمان كحرك بكسر صار دون إن أنا خلاصين دين كنا إسلام كا سيدنا هذا الأكاوي وكل إيمان ساه
qodobka 22aad xuquuqda shaqaalaha qof kasta oo shaqaalaha gaar ahaan haweenku waxay xaq gaar ah u leeyihiin in laga ilaaliyo faraxumeey xuquuqda takoorid iyo goobaha shaqada xeer kasta shaqaalaha habdhaqan kasta waa inuu xeerka sinaanta xuquuqda shaqaalaha la yidhi maxay tahay cunfiga gaarka ay haweenka loo geysanayo ee ku kala dheernahay shaqaalaha maxay tahay aniga xildhibaanka eeg fadhiya aniga oo kala duwan aniga la ilaalinayo wax laga ilaalinayo muxuu waxa mid moodaaba qoraalada xataa markaynu qorayno inuu qiimkeeni waxbarashada aqoonta midna toonayna ku dheehaneen hadii la rabo cid in la ixtiraamo cunfiga laga ilaaliyo waxa jira dad la yiraahdo waa la takoora dadkaas u baahan in laga wacyigeliyo cunfiyada loo geysana sidoo kale waxa jira dad naafa ah oo u baahan iyaguna in laga cunfiga laga daayo oo loo sinaado qofka naafadaana ilaahay baa yiri ku cimro qaata moogtaa curyaanka bacagalooma waayna caynka wax loo yiri soo heesmay oran jirin ilaahay baa qofka banaadka tusaale loogu siiyay wax haweenka gaar ah oo halkan aad ku soo xariiqdaan oo loogu geysan karaa ma jirto xuquuq bay leedahay xaq bay leedahay waa ku qorantay dastuurkay ku cadahay sheeka mala awaalaadkan aad ku soo qorqoraysaan keenaysaan waxa waa dastuur waa aayo mustaqbal waxaad maanta taagantahay ma aha saad rabto aad yeeli kartaa حسين إيدو أنا قدومية وحكا عصننا بركة القرآن لنا القريسان وحيابها أنت نساستر كنا قناع أما ضدك نباتو كينا إن نسك إلى عنف جات كسر قريسان هواكم حعنف اللي هو جيسكره وحسوا قلب ضدك هدي هيلو بهنتين ضدك بينها شنات هريه هبي قيلنا أي إذا كبهن هيل إن تكون عديسان إن أي حقوق ضقفك كل أولي هي الله سنتان سيدو كلنا ضدك نافذة taasa heelaydii ka baahan igana raali ahaad haduu wax iga tagi toosin bay iga ahayd waxaan leeyahay reer gobolka Banaadir jeega ugu horeeyo leaderka waxaan ku rajaynaynaa noqon doonto 26 madaxweyne wadanka ka noqda